الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub oo aynu kaga hadli doono dhulka. Muuqaalkan waxaynu kusoo qaadan doonaa habka ama qaabka ama shaxanka uu samaysan yahay dhulku. Iyadoo aynu joogno xilli ay noqdeen safarada lagu baxayo hawada sare mid laga yaabo inay maalin walba dhacdo iyo sidoo kale dayax-gacmeedyo aad u tiro badan kuwaasoo ku dul wareegaya dhulka oo inoo soo gudbinaya macluumaad iyo sawirro ku saabsan dhulka oo dhammaantood caddeynaya inuu dhulku wareegsan yahay. ayaa haddana waxaa jirta inay jiraan dad ka soo horjeeda fikradda ah inuu dhulku wareegsan yahay kuwaasoo ku doodaya inuu dhulku yahay shay fidsan kuwaasoo loo yaqaano bulshada aaminsan dhulka fidsan kuwaasoo leh mareego iyo shabakado aad u badan oo ay ku xidhan yihiin dad tiro badani. waxaynu kusoo qaadan doonaa muuqaalkeenan cadeymo ku tusinaya inuu dhulku wareegsan yahay. dhammaan meerayaasha aynu ku aragnay indhaheena ama teleskoobka dhammaantood waxaynu aragnaa inay wareegsan yihiin sida cadceedda dayaxa iyo meerayaasha kaleba. markaa sidee ayay suurtagal u noqonaysaa inuu dhulku ka duwanaado dhammaan meerayaashaas oo kale? su-aashan waxay tahay inay ka jawaabaan dadka iyagu aaminsan inuu dhulku yahay shay fidsan. waxaynu wada ognahay in dadka dhulka guudkiisa ku nooli qaybi ay ku jiraan maalin qaybta kalena ay ku jiraan mugdi ama habeen isla hal waqti taasoo dhici karta keliya tan marka uu dhulku yahay shay wareegsan taasoo qaybta maalinta ku jirta ay u jeedo dhanka cadceedda taasoo qaybta kalena ay kasii jeedo dhanka iftiinka qorraxda sida kaaga muuqata muuqaalkan. fogaanshaha cadceeddu wuu isbedelayaa mar kasta oo aad kasii fogaato dhulbadhaha taasoo haddii uu dhulku ahaan lahaa mid fidsan meel kasta oo dhulka ka mid ah ay cadceedda isku masaafo u jiri lahaayeen. haddii aad badda xeeligeeda istaagto oo aad eegto doonta dhankaaga u soo socota kolba si ayaa aad u arkaysaa. marka u horreysa ma aragtid kadib wax yar waxaad arkaysaa doonta inteeda sare ilaa iyo ugu dambeyn marka ay kusoo dhawaato doontu aad wada arkaysid. laakiin haddii uu dhulku sida dadka qaar aaminsan yihiin uu yahay mid fidsan waxaad arki lahayd badda xeeligeeda aad joogto ilaa iyo xeeligeeda kale waayo badda waa meesha ugu siman dhulka. haddaynu eegno ama aynu u fiirsano dayax-madoobaadka waxaynu arkaynaa inuu wareegsan yahay. dayax-madoobaadka oo dhaca marka uu dhulku kala dhex galo iftiinka cadceedda iyo dayaxa. hadhka aynu aragno xilliga dayax-madoobaadka waa hadhka dhulka. waxaynu haynaa sawirro laga qaaday dhulka iyadoo lagu sawiray dayax-gacmeedyo fara badan oo ay leeyihiin wadamo kala duwan. waxaa jira dad ku dooday in mabaadi' diineed ka dambayso arrimahan sheegaya inuu dhulku wareegsan yahay laakiin wadamada leh dayax-gacmeedyadan sawiraanta soo qaada waxa kale leh wadamo kala duwan wadamo kala diin duwan kala dhaqan duwan kala af duwan oo haysta mabaadi' diineed oo kala duwan sida muslimiin masiixiyiin yuhuud shuyuuciyad xataa kuwa bilaa diin ah. haddaynu eegno dhanka maabka ama khariirada caalamka ee dhigaya jaantuska wadamada caalamka waxaad arkaysaa in caalamka oo dhan uu yahay mid isku xidhan taasoo macnaheedu yahay haddii aad joogto tusaale ahaan waddanka Sacuudiga oo aad diyaarada u kaxaysato dhanka bariga sidaad u socoto waxaad kusoo noqonaysaa isla bartii aad ka tagtay taasoo aad kaga imanayso jihada kasoo horjeeda oo ah jihada galbeedka. taasina ma dhici lahayn haddii aynu nidhaahno dhulku wuu fidsan yahay waayo haddii uu shaygu shay fidsan yahay waxaa laazim ah ama lagama maarmaan ah inuu yeesho meel uu ku dhammaado.